magaalada kii soo duulay ilaahay haduu ku roon yahay dadka guryihiisa ku dhex jiray ee duminayay ee dadka leynaya dhiiga daadinayay yaa leh nabadgelyadii cid baa ku cayaaraysa waxaan arkayay Salmaan Maxamed Aadan oo shalay ka hadlayay golahooda oo leh wada hadalkii waxa diiday garaadada dhulbaxate waa nasiib darro weyn limaad ku soo duushay gurigiisii duminayso ilaahay adigu dadkiisii laynayso inaad haddana ku tiraahdo wada hadalkii buu diiday waxaa ka habboonaan lahayd inuu bareero oo yiraahdo inay isdhiibaan bay diideen hadalkaasi hadal la garan karo yuu ahaan lahaa annagaa diidna inaanu isdhiibno annagaa la dulli qaadan mayno annagaa ka dooranayna inaanu gulnimo ku noolaano geeri ka dooranayno dadka yaga ka doortay waxa aanu diidnay waxa weey anoo ku dilaya isacabtum waxaanu diidnay waxa weeye anigoo guryahaaga duminaya dushooda meydkaaga dushiisa igula hadal waxaanu leenahay annagu burco dumin mayno hargeysana ma duminayno berberana duulaan kuma nin ciidana nagama dul joogo laakiin haday arintan sidan ku sii socoto oo waliba dilka cayna loogu daro meelay aadi doonto xaajada alla og meelay aadi doonto xaajadan alla og waxaanu adduunka u sheegaynaa ciidankan guryaha iyaga duminaya dadka iyaga laynaya hana laga dulqaado waxaanu doonaynaa waxa weey markaas bay wada hadal imaan kara markaasaanu ka hadli karaynaa dhibaatada noo geystay mid af leh mid adin leh markaasaanu ama afin karaynaa ama aanu aarsan karaynaa laakiinse inta ciidanna dul joogo nin dhaglow maqal inta ciidan guriga iyaga ku jiro wax wada hadal oo dhaxaynaya ma jiro wax wada hadal aanu la galaynaa ma ay jirto haddii xabadi joojin imaanayso waa xabad joojin ciidanka lagu qaaday ta kaliyaanu damaanad qaadi karaynaa wata xabad joojin ciidan lagu qaadayo guryahooda lagu celinayo annagu waxaanu mas'uuliyadeeda qaadi karaynaa ciidankaas oo guurayo ku iyagu inay xabad ku ridin laakiin ciidankaas oo degan ma mas'uuliyad qaadayno in ay xabad laga daynayo maxaa yeelay ninkii aabihii dilay wiilkan ee walaalkii dilay ee gurigiisa dumiyay ha ku dul joogo ha ku nabad galo meelay adduunka ka dhacdaa ma jirto waxaanu leenahay maamulka isaaq ee Somaliland maytida aad hafraysaan ka daaya maytida garaad Cabdiqani baan kala go wadan seexin ana ka dhaxlay garaatooyada aabahay baan seexin awowgay baan seexin chief aaqil Ali Koran seexin ilaahay haduu ku roon yahay xad annaga iyo isaaq aanu ku wada jiro oo Soomaali aanu kaga soocannahay oo jiraan jirin warsangeli iyo isaaq xad ay goori uga soocan yihiin Soomaalida kale oo ay baan jirin xad qabiileenu leenahay xad qabiilo oo warsangeli iyo isaaq u dhaxeeya jira xad qabiilo oo dhulbahante iyo isaaq u dhaxeeya jira ka weeye ka kaliya inuu ku xisaabtamaynaa gaala Soomaali qaybsanaysay oo Talyaani iyo Ingiriis ahaa oo iyagu sidaynu wax u qaybsanaa 1884 soo qaybsaday baynu inagu ku noolaanaynaa idinka yeelimayn nabad hadaa doonaysaan guryihiina ku noqda nolol hadaa doonaysaan guryihiina ku noqda labada baad ku heli karaysaan annagu nabad iyo nolol loo taala inta wiil facay ama asaaga iyo dhulka yaga sheeganayo nabad iyo nolol waxaanu ku falaynaa ma ay jirto wabillahi tawfiiq dhulbaanta fudud hayga hadho dhulbaanta sabriyar hayga hadho 15 sanadood baad sabraysaan dalkiyo dadkiyo diintaba difaac bay ka rabaan
rabaan dowladahana kay rabaan dalkiyo dadkiyo diintaba difaacbay ka rabaan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البدن إذن ما أورنيو ماشتن هذا وحاكم دجال باك السعودة ميل هذا البدن وباهن ماها أدبدو ما هتسنتين السودوينتا سبعة كان آن دول البدن كسو مري ماشي يقص الرئيسي القمة سدال كي برتا يقص الرئيسي سيدي بورتو أقول هذا هي جودك ماشي يقص الرئيسي وكلن كان هذا إنه أن جراددي بيش بالبانته يفقشندي أن كل ما يو خدماتي بأديات بعد ما هتنتهين إن يرون بانورنيا أنت يران ورنيا وحيتهاي سومالي واتيز حمد شرتي بالبانته فضود هيقعدوا وراغها سو صارتين يقامدات قاعدين waxay muujinayaan miiraad weyn meeyer iyo kafiirsi iyo kabaarandeg aad weyn waxaan ka baqaayay maalmihii u horeysay waad jiraysaan intaan xabadu dhicin waa jirka ku jirteen inaad habeenayo maalin go'aamo ku soo saartaan ma ay dhicin in dooraad u fadhideen go'aamadii aad soo saarteenna weli waraaq sidaa u qoran dowladda federaalka kama arag حتى دولة الفدرالكا كما أرد waxay ahayd wuxuu ahaa baaq iyo go'aamo aad loogu fiirsaday oo aad looga baarandigay dulbaanta sabr yar ay gaadho 15 sanadood baad sabraysaan dulbaantaan xaqa u midoobin ay gaadho saddexdaasuba waa baxeen inta saddexdaasuba ay gaadheen dacdadan la saanood waa inaynu meelaynaa kacdoonkan laascaanood ka dhacay oo ka socda waa inaynu meelaynaa oo taariikhda ku meelaynaa taariikhdu way hadashaa ninkii micnaheeda la baxayaa way hadashaa jihaadkii aad la gasheen isticmaar iyo ingiriis maantuu soo xidhmayaa dhaxalkii isticmaarka ee aad la dagaalamayseen ka raba inuu soo celiyo iyo isticmaarkii isla mid jihaadka aad gasheen 100 sanadood ka hor maantuu soo xidhmayaa daawicii idin gaaray maanta macnawiyan tira ahaan iyo hantiba isa soo celisa diif weyn diif dhaawac iyo diif aad u weyn ayaa dagaalka idinka soo gaaray iyo jabkii daraawiishta idinka soo gaaray ma dhammaan dagaalkaas maantuu soo afjabaya dhaawicii idin gaarayna macnawiyan maanta laga bogsanaya aad ka bogsanaysaan dowladda federaalkana yar baan oranayaa weliba gaar ahaan xasan sheekh maxamuud madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaad ku celcelisaa xoog ku daymayno Somaliland idina xoog kaaga ma baahna kacdoonka laascaanood iyo guusha ka dhalatay waa fursad aad u weyn Soomaaliya lagu midayn karo idina xoog kaaga ma baahna fahamkeeda yeelo waxa dhacay faham inaad fahantid baa loo baahan yahay Somaliland iyo wixii ay rabtay laascaanood baa barida dhulka ugu dhufatay haddaad rabtid Soomaaliya inaad midaysid maanta fursad weyn ayaad haysaa siyaasad baad ku midayn kartaa cidina xoog kaaga ma baahna xayndaabkan aad ka hadlaysaa aad leedahay xayndaabka midnimada aanu ilaalinayno bay ka mid tahay xayndaabkaas macnaheedu waxa weeye intii ingiriis xukumi jiray oo dhami Somaliland bay isku yihiin iska ilow Somaliland ka kooban intii ingiriis xukumi jiray ma dhacayso iska ilow fursad baad haysataa maanta aad ku bilaabi kartid halgan cusub iyo siyaasad cusub
cidina xabad kaagama baahna Somaliland waa horaan iridan xisaab baa keeni doonta ay xisaabtanto oo ka xisaabtanto khasaariyo faa'iido ay ka xisaabtanto waaga laascaanood baa xilligan hadalka lahaa laascaanood baa kacdoon ka dhacaya ismaan lahayn ma ogeyn maantay timi damba keeni doonta Somaliland fursadda maanta aad haystid Soomaaliya lagu midayn karo fahan ergaygana aad magacawday qiimo ay leedahay magacaabidaasi ma jirto ka bilow laascaanood oo xaq ka hadal Somaliland waxay leedahay waxaanu laascaanood u garaacaynaa midnimadayada dhuleed baanu ilaalinaynaa yaa midnimada dhuleed xaq u leh dawladda Soomaaliyeed baa xaq u leh midnimo dhuleed waa xaq la yaqaan oo duwali ah oo la yiraahdo territorial integrity waa xaq ay dawladuhu u leeyihiin inay dhulkooda difaacaan dawladda Soomaaliyeed baa leh xaq adiga lagu xil saaray inaad ilaalisid ay Somaliland sheeganaysaa oo dadka lagu leynayaa oo aadan adiguna ka hadlayn waxaan rabbi ka rajaynayaa inaad fahantid oo aad xaq u soo noqotid mar labaad aad iyo aad garaado